kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya ee ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen mooshinkii laga keenay maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo dhawaan ay mooshin ka keeneen 42 xildhibaan. Kalfadhigan ayaa waxa shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad waxa uu sheegay in heshiis laga gaaray mooshinka waxa uu ku dhawaaqay heshiisku waxa uu yahay ee la gaaray heshiis ku saabsan xalinta khilaafaadka iyo tabashooyinka ka jira bulshooyinka dhaqameed ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya markuu arkay mooshinka ku taariikhaysan 12 bisha Afraad 2016 oo ay soo gudbiyeen 42 xildhibaan ee golaha shacabka oo soo jeediyay in la joojiyo dhisida maamul goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe si muwaadiniinta labadaas gobol u helaan fursad ay isugu diyaariyaan. Markuu arkay warqadda lambar OPM xariijin eber 4 xariijin 2016 ee ku taariikhaysnayd 19 bisha Abriil 2016 ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo guddoonka ka codsatay in mooshinka la hakiyo oo laga sugo warqadda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka. Markuu arkay in xildhibaanada iyo xukuumadduba isla wada qisan yihiin in loo baahan yahay in xal loo raadiyo khilaafaadka iyo tabashooyinka ay ka qabaan bulshooyinka dhaqameed ee labada gobol, xildhibaanada arrinkaas loo oggol ay si gacantaaga u muujiyaan inay la aqbalsan yihiin. sidoo kale waxa la faray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowaa in uu u soo gudbiyo baarlamaanka Soomaaliya warbixino toddobaadle ah. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxa la farayaa in uu warbixin toddobaadle ah kuna saabsan hadba meesha xaaladdu marayso uu u soo gudbiyo guddoonka golaha shacabka si loola socodsiiyo kulamada guud ee golaha shacabka. si kastaba ha ahaatee maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa ku noqotay dawladda federaalka Soomaaliya caqabad iyadoo uu jiro kala aragti duwanaansho la xiriira habkii loogu sameyn lahaa maamul Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere TV-ga caalamiga ee Star magaalada Muqdisho.